buuggaas hal buug oo keliya ayaa Vaticanku ku tilmaameen inuu yahay khatarta ugu weyn ee diintooda soo food saartay. buug ay amar ku bixiyeen in la gubo, la qariyo oo qofkii haystana la dilo. buuggan wuxuu sheegayaa in nabiyullaahi ciise calayhi salaam aan la isku tallaabin, in yudas lagu bedelay oo la dilay, iyo in nabiyullaahi ciise calayhi salaam uu si cad u sheegay inuu imaanayo nebi la odhan doono Axmed. haddii buuggani run yahay, masiixiyadda oo dhan ayaa isbedelaysa. laakiin su'aasha ugu cabsida badan ayaa waxay tahay, maxay ugu baqeen in dadku akhriyaan buuggan? maanta waxaan furaynaa albaabka qarsoon ee taariikhda injiilka Barnabas, buug laga mamnuucay in dunida lagu akhriyo. waxaa jiray nin la odhan jiray yuusuf oo ka yimid Qubrus. dadkii uu la noolaa waxay u bixiyeen Barnabas, oo macnaheedu yahay wiilkii dhiirigelinta ama wiilkii qalbi qaboojinta. wuxuu ahaa yahuudi daacad ah oo qani ah, wuxuuna ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee rumeeyey nabiyullaahi ciise calayhi salaam. ma ahayn oo keliya taageere, wuxuu ahaa saaxiib aad ugu dhow. wuxuu la socday ciise intii uu noolaa, wuxuuna maqlay ereydiisii tooska ahaa. Barnabas wuxuu rumaysnaa in nabiyullaahi ciise uu yahay nebi weyn oo uu Ilaahay soo diray, sida nebi muuse iyo nebi ibraahim, laakiin ma rumaysnayn inuu yahay ilaah ama wiilka ilaah. markii nabiyullaahi ciise la qaaday, Barnabas wuxuu sii waday inuu u adeego fariintaas. ilaahay waa keliya, mana jiro cid la caabudo isaga mooyaane. laakiin halkan ayaa sheekadu iska beddeshay. waxaa jiray nin kale oo la odhan jiray Paul oo ka yimid magaalada Tarsus. wuxuu ahaa yahuudi adag oo cadaawad weyn u qabay dadka rumaysan nabiyullaahi ciise. laakiin halkan ayaa farqigu weyn ka bilaabmay. Barnabas wuxuu rumaysnaa in sharciga ilaahay uu weli taagan yahay. Paulna wuxuu bilaabay inuu dhiso fikrado cusub. fikradahaas waxaa ka mid ahaa in ciise uu yahay wiilka ilaah, in dhimashadiisu ay dhaaftay dembiyada dunida, iyo inaan loo baahnayn in la raaco sharciga hore. way wada safreen, laakiin markii dambe way kala qaybsameen. Barnabas wuxuu ku adkaystay inay raacaan waxa nabiyullaahi ciise si toos ah uu u baray. Paulna wuxuu bilaabay inuu u qoro waraaqo kala duwan bulshooyinka cusub. qaar badan oo taariikhyahanno ah ayaa aaminsan in waraaqadaha Paul ay noqdeen qaybta ugu weyn ee New Testamentiga maanta. laakiin su'aasha weyni ayaa ah, yaa run sheegaya? yaa bedelay sheekadii asalka ahayd? sanadkii 325, boqor Constantine wuxuu isu keenay 300 oo hogaamiyaal diineed oo Kirishtan ah magaalada Nasiya. ujeedadiisu waxay ahayd inuu mideeyo boqortooyadiisa. diin kala qaybsan ayaa khatar ku ahayd awoodiisa. waxay doorteen 4 injiil oo keliya. waxay kala ahaayeen Matayos, Markos, Luukos iyo Yohana. inta kale way mamnuuceen. injiilkii Barnabas ayaa ka mid ahaa kuwa la mamnuucay. sababtu waxay ahayd, injiilkii Barnabas wuxuu si cad u sheegay in nabiyullaahi ciise uusan ahayn ilaah, in aan la isku tallaabin, iyo in nebi kale la sii sheegay. Vaticanku wuxuu amar ku bixiyey in dhammaan nuqullada la baabi'iyo. qofkay haysta buugganna waxaa lagu ciqaabi jiray xabsi ama dil. laakiin runta ma baabi'iso sidaan oo keliya. sanadkii 477, Qubrus waxaa laga helay qabri loo maleynayo inuu yahay qabriga Barnabas. dhexdiisa waxaa la sheegay inay ku jirtay nuqul ka mid ah injiilkiisa. qarnigii 20aad waxaa jira sheekooyin la yaab leh. 1983, Turkiga, gobolka Siirt, nuqul Araami ah oo laga helay god qarsoon waxaa loo keenay xarun ciidan, halkaasi oo uu turjumay Hamza Hoxha, kadibna waa la qariyay. 1996, Qubrus, habeen madow, ciidamo hubeysan ayaa soo galay meel qarsoon. waxaa la sheegay inay qaateen nuqullo muhiim ah. waxaa kaloo jira sheekooyin muruga leh. dad arkay sawirrada buugga, kadibna waxay la kulmeen shilal iyo dilal la yaab leh. maxaa loo baqay? maxaa loo qariyey? buuggan ayaa sheegaya nabiyullaahi ciise wuxuu yahay nebi iyo rasuul, ma aha Allah. ma ahayn isku tullaabid. qof kale ayaa lagu bedelay muuqaal ahaantiisa, yacni muuqiisa ayaa qof kale lagu bedelay, qofkaas ayaana la dilay. nebi ciise wuxuu si cad u sii sheegay inuu imaanayo nebi la dhihi doono Axmed, oo qur'aanka ku jira suuradda 61 aayadda 6. wuxuu ku adkaystay tawxiidka nadiifka ah, ilaahay waa keliya. waxaa kaloo uu sheegay in asalkiisu yahay Araami, laakiin nuqulka maanta la yaqaan uu yahay Talyaani, taas oo keentay muran weyn oo ku saabsan sax ahaantiisa. ugu dambayn, haddii injiilku Barnabas run yahay, wuxuu noqon karaa buuggii ugu khatarta badnaa ee masiixiyadda. dhanka kale, wuxuu noqon karaa buugga ugu iftiinka badan dadka doonaya inay xaqa ogaadaan. haddii uu been yahay, maxaa loogu sameeyey dadaal intaasi la eg si loo qariyo? runta had iyo jeeraaba way soo baxdaa, xitaa haddii qarniyo la qariyo. haddii aad jeceshahay sheekooyinka qarsoon ee diimaha, taariikhda la qariyey, iyo raadinta xaqiiqda, ha ilaawin inaad nagu soo biirto, like riixdo, oo dadka kale ama asxaabtaada aad u sheergarayso. sidoo kale, faalooyinka ama kommentiga ku qor ciwaanka ayaad jeclaan lahayd
inaan ka soo hadlo fiidiyowga xiga.